waxaan rabaa inaan ka hadlaa laba qodob oo maartay aad iyo aad muhiim u ah. horta arrimaha siyaasadda maalmahan dambe way soo tareeyeen. waxaan arkay laba qoys oo lala fariistay oo la yiri qoysaskan ayaa muhiim u ah inay maartay culiyahan laga bilaabo. waxa laga bilaabo Ree Cali iyo waxa lagu xijiyay muxuu ahaa Ree Qaasin, waxa kale lagu sii xijiyay Afwax. lixda kale waxa la yiri waa loo iska xariisana macna ma laha. waa arrin aan la yaabanahay arrinta ayada ah. qodobka koowaad. qodobka labaad marka waxa waaye aan rabo inaan halkan ka sharaxo hadii Ilaahay idmo. waxa waaye 5 nin oo 5 sano kibaandha qabaan inay maartay u taliyaan ninkan weyn ee shalay magaaladan mas'uulka ka ahay wax kasta kala kasi isagoo joogo xisbigiisa laga qaatay bar hore kursigiisa laga qaatay. horta meeshan habsan fara badan baa yaala. waxaan dhihi lahaa inuu haduu dadka ka naxaya masaakiinta ee gabdhaha masaakiinta ee walaaladiisa sida arta ugu sacabeynayaan u ruuxayaan inuu iskaga tanaasulo oo maartay uu kursiga u tanaasulo ninkan walaalkiisa haduu tala rabo uu runta rabo. anu nadiif waxaan ku waan lahaa inuu maartay ma baraba gadaashi in biyo la cabe in maartay uu ninkaas walaalkiisa hadda kursiga sheeganayo uu iskaga tanaasulo. qodobka labaad saddexaad waxa waaye qodobka xalay meeshii guri la yiraahdo meel meeshan oo la yiraahdo half less worry oo bari horeba markay dawladda dhacayso uu nadiifkan fadhiyay oo la lahaa less worry musee meeshan fadhi meeshii ayadeed inuu xalay incident aad u adag ka dhacday oo la yiri wax alla wixii fariin aad haysaan wiilka yarka ugu fara nadiif dad baa mas'uulka oo dad wax walba oo loo sheegi lahaa dad baa u sii sheegi oo ka dambe ayaga macsuumin oo kugu sii sheegi. meesha ma malaa'ig fadhida meesha waa ninkan aan shalay wada garanayne kursigiisa ninkan ka qaatay hadda uu xayigayo soo jooda ninkii oo maanta wax walba waxa qasaare igu laakiin Cali Buno waan ognay inuu outgoing oo nin sii socdo nin maanta la tartamay inaan haynin ninkii shalay uu kursiga ka qaatay muxuu ahaa ka xoogay isagoo dawladda haysto inuu meelahan warwareegsan hayo niman sharci la'aan maartay oo 5 sano kaliya sharci qabaan inuu maartay iska ag joogo oo uu leeyahay muxuu ahaa musee inta fariiso inta usoo istaag nadiif ninkan leeyahay waa nin fiican laakiin shakhsiyaadka hadda ku hareeraysan ee 10 sano kibaandhaha leh ama 5 sanaba muddaday doonaan hala haadeen nama maalan dadka ayaga nadiif anaga 6 qoys aad tiri waa lo iska xareysan oo ana iska leena mas'uul kama tihid shaqo kuma lihin 6 qoys oo lo ma lihin anaga laakiin culiyahan 9 dab walba waa gaar ninkaad la kulmi la kulan laakiin kuwana liido kuwana aad dhahdo waa abakoro ma number 1 bay ka ahayn dawladnimada suuragal ma aha. arrintaas arrin lagu farxa ma aha. arrinta hadda socoto waa arrin aad iyo aad looga naxo. qodobka kale gadaashaa in biyo la cabo ma rabtid ninkan walaalka ee iskaga tanaasul waxba kaama rabno waan ku ognahay waa dhici kursi ma qaadan kartid waa laga xoogi walaalow macaano hadaad islaamka ku jirto kursiga ninkan walaalka u daa. qodobka muhiimka kan saddexaad waxa weeye oo aan u sheegi rabo carruurtan yaryarka ee iska dhigayaan inay maartay nadiif mas'uul ka yihiin oo nadiif la talinayaan oo dhagta afka u sarsaarayaan war ninkan anaga ma rabno waxba noogama duuna asagoo dawladan diidnay isagoo dawlad la'aan wuxuu noo sheegi male. haddii Ilaahay dadka walaaladeena aan ku bahowno magaaladan Gaarisa ama aan ku walaalowno siyaasadda waxaan u sheegayaa haddii Ilaahay inaan idin keeni doono candidate caafimaad qabo ninkan shalayba isagoo xay kursigiisa laga qaatay ninka ka qaatay uu joogo idin ma keenin haddii Ilaahay shakhsi fiyow oo kaliin aba idin keenina haddii Ilaahay insha Allah bi'idhnillaahi al-kariim. shakhsigan korkiisa waa wada dhaawac meel la qabsado ma laha ninkan meeshaad qabato waa boog marka waxaan leenahay shakhsi caafimaad qaba ayaa idin keenina nagana rajeeyay haddii Ilaahay anagoo iswadano dhamaan maartay isagana inuu tanaasulo ayaan maartay ku kalifaynaa insha Allah bi'idhnillaahi al-kariim.